waxa kaloo jira oo aan waxa weeyaan runaantii ganacsatada xoolaha dhoofisa haddaanu nahay aanu ka cabanaynaa oo aanu cabashadii halkaan aan rabo inaan kaga faa'iidaysto wareegtadii bisha tan aynu soo dhaafnay horraanteedii ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland runaantii waxa weeye hakadkii xoolaha waa istaagay xilligii waxa weeyaan ummaddu ama ganacsatada xoolaha dhoofisa ama ganacsatada oo dhan ama waddanku ka faa'iidaysan jira weeye xoolihii noola hadda waxay ku xayiran yihiin magaalada Beledweyne oo runaantii xoolaha nool la saad ogsoontiinba lama hayn karo oo waxa weeyaan xero laguma hayn karo baad iyo waxa weeyaan duur u daaqayno inagu caado u leena inaan xoolaheena ku haysano xoolihii halkaas waxa weeye ayay ku xayiran yihiin neefna kama soo dhoofo waxaana sabab waxa weeyaan wareegtadii ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ujeedadeedu ama sababteedu ahayd sugidda amniga kama xumin ama waa heegan baan u nahay diyaar baan hadaan u nahay ganacsatada Puntland inaan ka qayb qaadano amniga waxa weeye sugitaankiisa iyo waxa weeye wax ka qabashadiisa waa loo baahan wax loo baahan yahay laakiin waxaanuna cadeynaynaa kana cabanaynaa arrintaas inay waxa weeye culays keentay dhibaatana ay keentay xoolihii loogu talagalay bisha Arafo ama mamskan in laga faa'iideystaan ay ku xayiran yihiin ilaa alaana magaalada Beledweyne sidaa daraadeed waxaanu madaxda dowlad goboleedka Puntland ee ugu sareeyay madaxweynuhu aanu ka codsanaynaa arrintaa iyada in gacan laga geysto sidii loo fududeyn lahaa xoolahaas inay soo gudbaan ganacsiguna isu gudbo sidaanu ognahay waxa weeye intii burburku jiray waxyaabaha lagu badbaaday oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ay ku badbaaday iyadoo waxa weeye dagaalada ahliga jiraan waxa kamid ah ganacsigu siyaasad ma lahayn waxa weeyaan iyadoo dagaal ahliga jiraan ayaa ganacsigu isu socday isuna kala gooshayay sidaa daraadeed waxaanu madaxda ka codsanaynaa iyadoo amniga la sugayo la ilaalinayo in laga shaqeeyo waxa weeye ganacsigii oo hoos u dhacay in uu waxa weeye inoo socdo sidaynu ognahay ganacsigu hadduu joogsadana waxa weeyaan wax la qabsan kari maayo horumar la gaari maayo canshuur waxa weeye ma jirto dhaqaalu waa burburaya madaxweynaha waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka dekedaha gobernadorka gobolka taliyaha dekeda iyo marti sharaf kaleeto waxa maanta farxadii ah dakhligii ay isku tashatay Puntland ganacsatada siyaasiyiinteeda qof kasta oo reer Puntland oo ku talagalay wax ka baxsho maralkeeda labaad waana u mahadcelinaa inta ka shaqeysay inta ka qayb qaadatay dhamaantood anu ka gaadidan ahaan markaan ka hadlo boqolkiiba 42 aan la ku daray cashuurta 3 biloodka hadii waxaan mar labaad diyaar u nahay inaan ku bixino boqolkiiba 200 sida ay u hirgasho waxaanu higsanayno iyo wadada ceel daahir ilaa ceerigaaba hadda waxaa nasiib darro maalmahan dhacday